الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين markii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ay da-diisu 40 ku dhowaatay waxaa la jeclaysiiyey inuu ku qaato saacado dhaadheer cidlo iyo kelinimo iyo odorisida dhammaan arrimaha uunka hareerihiisa ah. keli fikirka waxay keentay inay ballaariso farqiga aragtida u dhexeeya isaga iyo qoomkiisa. wuxuu qaadan jiray sawiiq salool biyo oo markaas aadi jiray gebiyada iyo waraqyada u dhow Maka. mid ka mid ah baa ahaa gaar ahaan meesha uu fadhilo waa gebi la yidhaahdo Xiraa oo ku yaal buurta Nuur. wuxuu u jiray oo keliya 2 mayl Maka. gebi yar oo dhererkiisu ahaa 4 dhudhun ballaciisuna ahaa 3 dhudhun iyo dheeraad. wuxuu aadi jiray badi halkaas oo ugu yeeri jiray dadka safraya inay la wadaagaan raashinkiisa fudud. wuxuu ku dhamaysan jiray waqtiga badankiisa gaar ahaan bisha Ramadaan cibaadaysi iyo fiirfiirinta iyo ka fekeridda muuqaalka koonka baaxadda weyn iyo awoodda ka dambaysa ee amaamuday waa Alle jalla wa ala. qalbigiisa waxa uu ka walwalsanaa oo kuma uu qanacsanayn caqiidooyinka shirkiga iyo qabitaanada daleesha ah ee tulkii rumaysnaayeen. isla markaasna ma uu haysan wada cad iyo manhaj la yaqaan oo uu ku xasilo oo qanciya. rasuulku sallallahu calayhi wasallam cidlaysiga uu doortay oo jeclaaday waxaa ka dambeeyay maamul Alle si loogu diyaariyo arrin weyn oo ku soo aadan oo sugaya naf kasta oo la doonayo inay wax bedesho oo sida aadanuhu ku nool yahay ay saameyn iyo raad ku reebto. waxaa lama huraan ah inay hesho muddo ay firaaqowdo oo gooni iyo cidlo ku noolaato oo ay ka socnaato oo ka dhex baxdo buuqa iyo qaylada nolosha iyo fekerka aadanaha ee firigta ah ee nolosha la filka ah. sidaas buu Alle kor ahaayay rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam u qoondeeyay isagoo u diyaarinayay xilka weyn ee uu xambaari doono oo dhulka guudkiisa isbedel ku samayn doona oo majaraha taariikhda leexin doona. wuxuu Alle rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam cidlaysigaas u qoondeeyay 3 sano ka hor intii uusan xilka risaalada qaadin. muddo bil ah buu cidlada u bixi jiray isagoo la noolaan jiray koonka dalaasha ah oo fiirfiirsan jiray waxa qarsoon ee koonka ka shisheeya inta laga gaarayo maalinta uu la falgeli lahaa waxa qarsoon markii Alle jalla wa ala uu idmo. markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam 40 jir gaaray da'da kaamil noqoshada ee nebiyada mar walba lagu amro inay shaaca ka qaadaan risaaladooda astaamihii nebinimadiisa baa bilowday inay ka muuqataan oo ka soo bidhaantaan jihooyinka nolosha. waxaana calaamooyinka ka mid ahaa riyooyinka. haddii uu riyo ku riyoodo iyadoo dharaar cad ah sideedii buu arki jiray. muddo 6 bilood ah bayna riyadaasi socotay. muddada nebinimada waxay ahayd 23 sano kolka muddada 6 bilood ee riyada dhabowdayna qayb ka ahayd 46 qaybood oo nebinimadu ka kooban tahay. Ramadaan gudihii oo ah sanadkii 3aad ee uu ku khalwoodka nebiga sallallahu calayhi wasallam xiira rabitaanka Alle waxay doontay naxariistiisu inay ku dararto dhulka. Muxammedna sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu sharfay nebinimo. nuurkii waxyiga baa xoog u kala furmay aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ah baana soo degay. markii la baarayna maalintaasi waxay ku beegnayd maalin Isniin ah 21kii Ramadaan habeenimo oo waafaqsan 10kii August sanadkii 610 ee miilaadiga. markaasna rasuulku sallallahu calayhi wasallam da'diisu waxay ahayd 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 cisho oo sanadka dayaxa ah, taasoo u dhiganta 39 sano iyo 3 bilood iyo 12 maalmood oo sanad qorraxeedka ah. Caaisha waa runleydii waxay soo warisay warintan soo socota ee la xiriirta dhacdada taariikhiga ah ee la soo dejiyay nuurka ilaahiga ah ee lagu saaray mugdiga kufriga iyo jaahilnimada. waxay u jeexday nolosha wado cusub oo keentay isbedelkii u weynaa ee dhaca taariikhda aadanaha. Caaisha ilaahay ha ka raali noqdee waxay tiri hordhici waxyiga sida uu ku bilowday nebiga sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd riyo run ah. haddii uu riyo ku riyoodo wuxuu arki jiray iyada oo dharaar cad sideedii ah. dabadeed waxaa nebiga sallallahu calayhi wasallam la jeclaysiiyey gooniyoobid iyo soocanka. wuxuuna ku kaliyoobi jiray gebiga Xiraa oo uu ku cibaadaysan jiray
habeeno tirsan inta uusan u laaban xaaskiisa. dabadeed waa uu laabanayay, markaasuu sahay ka soo qaadan jiray dhan inta uu joogay. isagoo sidaas ku jira oo gebiga xiiro jooga baa xaqii malagu u yimi oo ku yidhi akhri. ma akhrin karo buu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam. muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku celiyey malagii akhri. markaasuu qabtay oo camajuujiyey, misna waa uu sii daayey oo ku celiyey akhri. markaasuu qabtay oo camajuujiyey. rasuulkuna markasta waxa uu lahaa anigu ma akhriyo. markii dambe ayaa malagii wuxuu ku yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaqa al-insaana min calaq iqra warabuka alakram. nebigu sala allahu calayhi wasalam uu ku celceliyey aayadaha wuxuu la jaraynaya cabsi. markaasuu rasuulku isgadiyey oo u tegay xaaskiisii khadiija oo yidhi iddada waana la dilay. intii naxdintu ka ba'day wuxuu uga warramay khadiija arrinkii gebiga iyo inuu naftiisa u yaabay. xaaskiisii waxay isku dayday inay dejiso oo sugto isaga iyadoo leh maya, wallaahi baan alle abidkaa kuu hoojinayn. se adigu waxaad xiriirisaa riximka oo ka qaadaa culaabta qofka daciifka ah, waxaad kaalmaysaa saboolka iyo baahanaha oo soortaa martida oo ugu dulqaadataa dhibo iyo xaqa daraadii. markaasay u kaxaysay nebiga sala allahu calayhi wasalam ina adeerkeed waraqa bin nawfal bin asad bin cabdilcuza, kaasoo galay diinta kirishtaanka islaamka ka hor oo ku qori jiray injiilka afka cimraaniga. wuxuu ahaa oday waayeel ah oo indhala. khadiija waxay tiri in adeerow bal dhegayso wiilka aad adeerka u tahay. waraqa wuxuu yidhi wiilkii walaalkayow maxaad aragtay? rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalam wuxuu uga warramay wixii uu la kulmay. waraqa wuxuu ku warceliyey kani waa naamuus, macnaha waa malaga loo dhiibo xogaha iyo waxyiga alle uu alle usoo diray nebi muuse calayhi salaam. haddii aan xoog lahaan lahaa, haddii aan noolaan lahaa marka tolkaa ku saarayo. muxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuu weydiiyey miyay isaari doonaan? waraqa wuxuu ku jawaabay haa, ma jiro nin waxa aad la timi oo kale la yimi oo aan la colaadin. haddiina aan nolol ku gaaro maalintaas, markaas hiil la yaqaan baan kuu hiilin doonaa. dhowr maalmood kadib waraqa waa uu dhintay, waxyigiina sidoo kale waa hakaday. walaalayaal, darsigan darsi la mida inta aynu ku kulmi doono waa anigoo ah maxamuud jaamac. waxaan idinkaga tegayaa ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiisa leh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. markii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ay da-diisu 40 ku dhowaatay, waxaa la jeclaysiiyey inuu ku qaato saacado dhaadheer cidlo iyo kelinimo iyo odorisida dhammaan arrimaha uunka hareerihiisa ah. keli fikirka waxay keentay inay ballaariso farqiga aragtida u dhexeeya isaga iyo qoomkiisa. wuxuu qaadan jiray sawiiq salool biyo oo markaas aadi jiray gebiyada iyo waraqyada u dhow Maka. mid ka mid ah baa ahaa gaar ahaan meesha uu fadhilo. waa gebi la yidhaahdo xiraa oo ku yaal buurta nuur. wuxuu u jiray oo keliya 2 mayl Maka. gebi yar oo dhererkiisu ahaa 4 dhudhun, ballaciisuna ahaa 3 dhudhun iyo dheeraad. wuxuu aadi jiray badi halkaas oo ugu yeeri jiray dadka safraya inay la wadaagaan raashinkiisa fudud. wuxuu ku dhammaysan jiray waqtiga badankiisa, gaar ahaan bisha Ramadaan, cibaadaysi iyo fiirfiirinta iyo ka fekeridda muuqaalka koonka, baaxadda weyn iyo awoodda ka dambaysa ee amaamuday waa alle jalla wacalaa. qalbigiisa waxa uu ka walwalsanaa oo kuma uu qanacsanayn caqiidooyinka shirkiga iyo qabitaanada daleesha ah ee tolkii rumaysnaayeen. isla markaasna ma uu haysan waddo cad iyo manhaj la yaqaan oo uu ku xasilo oo qanciya. rasuulku sala allahu calayhi wasalam cidlaysiga uu doortay oo jeclaaday waxaa ka dambeeyey maamul alleh, si loogu diyaariyo arrin weyn oo ku soo aadan oo sugaya naf kasta oo la doonayo inay wax beddesho oo sida aadanuhu ku nool yahay ay saamayn iyo raad ku reebto. waxaa lama huraan ah inay hesho muddo ay firaaqowdo oo gooni iyo cidlo ku noolaato, oo ay ka socnaato oo ka dhex baxdo buuqa iyo qaylada nolosha iyo fekerka aadanaha ee firigta ah ee nolosha la filka ah. sidaas buu alle kor ahaayay rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam u qoondeeyey, isagoo u diyaarinayay xilka weyn ee uu xambaari doono oo dhulka guudkiisa isbeddel ku samayn doona oo majaraha taariikhda leexin doona.
wuxuu alle rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam cidlaysigaas ku qoondeeyey 3 sano ka hor intii uusan xilka risaalada qaadin. muddo bil ah buu cidlada u bixi jiray isagoo la noolaan jiray koonka dalaasha ah oo fiirfiirsan jiray waxa qarsoon ee koonka ka shisheeya inta laga gaarayo maalinta uu la falgeli lahaa waxa qarsoon markii alle jalla wacala uu idmo. markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam 40 jir gaaray da'da kaamil noqoshada ee nebiyada mar walba lagu amro inay shaaca ka qaadaan risaaladooda astaamihii nebinimadiisa baa bilowday inay ka muuqataan oo ka soo bidhaantaan jihooyinka nolosha waxaana calaamooyinka ka mid ahaa riyooyinka. haddii uu riyo ku riyoodo iyadoo dharaar cad ah sideedii buu arki jiray. muddo 6 bilood ah bayna riyadaasi socotay. muddada nebinimada waxay ahayd 23 sano kolka muddada 6 bilood ee riyada dhabowdayna qayb ka ahayd 46 qaybood oo nebinimadu ka kooban tahay. ramadaan gudihii oo ah sanadkii 3aad ee uu ku khalwoodka nebiga sallallahu calayhi wasallam xiira rabitaanka alle waxay doontay naxariistiisu inay ku dararto dhulka. muxamedna sallallahu calayhi wasallam waxaa lagu sharfay nebinimo. nuurkii waxyiga baa xoog u kala furmay. aayado ka mid ah qur'aanka kariimka ah baana soo degay. markii la baarayna maalintaasi waxay ku beegnayd maalin isniin ah 21kii ramadaan habeenimo oo waafaqsan 10kii August sanadkii 610 ee miilaadiga. markaasna rasuulku sallallahu calayhi wasallam da'diisu waxay ahayd 40 sano iyo 6 bilood iyo 12 cisho oo sanadka dayaxa ah, taasoo u dhiganta 39 sano iyo 3 bilood iyo 12 maalmood oo sanad qorraxeedka ah. Caaisha waa runleydii waxay soo warisay warintan soo socota ee la xiriirta dhacdada taariikhiga ah ee la soo dejiyay nuurka ilaahiga ah ee lagu saaray mugdiga kufriga iyo jaahilnimada. waxay u jeexday nolosha wado cusub oo keentay isbedelkii u weynaa ee dhaca taariikhda aadanaha. Caaisha ilaahay ha ka raali noqdee waxay tiri hordhici waxyiga sida uu ku bilowday nabiga sallallahu calayhi wasallam waxay ahayd riyo run ah. haddii uu riyo ku riyoodo wuxuu arki jiray iyada oo dharaar cad sideedii ah. dabadeed waxaa nabiga sallallahu calayhi wasallam la jeclaysiiyey gooniyoobid iyo soocanka. wuxuuna ku kaliyoobi jiray gebiga xiira oo uu ku cibaadaysan jiray habeeno tirsan inta uusan u laaban xaaskiisa. dabadeed waa uu laabanayay markaasuu sahay ka soo qaadan jiray dhan inta uu joogay. isagoo sidaas ku jira oo gebiga xiira jooga baa xaqii malagu u yimi oo ku yiri akhri. ma akhrin karo buu yiri rasuulku sallallahu calayhi wasallam. muxamed sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku celiyay malagii akhri. markaasuu qabtay oo camajuujiyay. misna waa uu sii daayay oo ku celiyay akhri. markaasuu qabtay oo camajuujiyay. rasuulkuna markasta waxa uu lahaa anigu ma akhriyo. markii dambe ayaa malagii wuxuu ku yiri اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. نبي صلى الله عليه وسلم وكعل عليه آياتها wuxuu la jareynaya cabsi. markaasuu rasuulku isgadiyay oo u tagay xaaskiisii Khadiija oo yiri idada waana la dilay. intii naxdintu ka baaday wuxuu uga warramay Khadiija arrinkii gabiga iyo inuu naftiisa u yaabay. xaaskiisii waxay isku dayday inay dejiso oo sugto isaga iyadoo leh maya wallahi baan alle abidka ku hoojinayn. saadigu waxaad xiriirisaa riximka oo ka qaadaa culaabta qofka daciifka ah. waxaad kaalmaysaa saboolka iyo baahanaha oo soortaa martida oo ugu dulqaadataa dhibo iyo xaqa daraadi. markaasay u kaxaysay nabiga sallallahu calayhi wasallam ina adeerkeed Waraqa bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza kaasoo galay diinta Kirishtaanka islaamka ka hor oo ku qori jiray injiilka afka Cibraaniga. wuxuu ahaa oday waayeel ah oo indhala. Khadiija waxay tiri in adeerow bal dhageyso wiilka aad adeerka u tahay. Waraqa wuxuu yiri wiilkii walaalkayow maxaad aragtay? rasuulkii alle sallallahu calayhi wasallam wuxuu uga warramay wixii uu la kulmay. Waraqa wuxuu ku warceliyay kani waa naamuus, macnaha waa malaga loo dhiibo xogaha iyo waxyiga alle uu alle u soo diray nabi muuse calayhi salaam. haddii aan xoog lahaan lahaa haddii aan noolaan lahaa marka tolka ku saarayo. Muhammad sallallahu calayhi wasallam wuxuu weydiiyay miyay isaari doonaan? Waraqa wuxuu ku jawaabay haa ma jiro
nin waxa aad la timi oo kale la yimi oo aan la colaadin. haddiina aan nolol ku gaaro maalintaas, markaas hiil la yaqaan baan kuu hiilin doonaa. dhowr maalmood kadib Waraqa waa uu dhintay, waxyigiina sidoo kale waa hakaday. walaalayaal, darsigan darsi la mida inta aynu ku kulmi doono, waa anigoo ah Maxamuud Jaamac. waxaan idinkaga tegayaa ammaano Allah iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.